بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا محمد علي بلا ما أنت برنامج كأنه حكوا سابسين هاي مركل ويرو ورئيسي أما وحينون نقاني انترفيو اللي دوني اللي ورئيسته اللي ويرو يتصور فريسة تدك كوريسين هي أما انترفيو كقاضي كل بس هذا تقان واحد شراس دور سؤالات ده كل اللي ويدينيه سألونا وحو بدنانا يعني wax shaqadaada ku saabsan shaqadan cusub ee soo qorato wax ku saabsan balse waxa jira afar su'aalood oo hadiyo goor interview kasta dadka la weydiiyo marmarka qaarkood mid kamid ah la weydiiyo marmarka qaarkood laba kamid ah la weydiiyo marmarkana saddex marmarna afar taba la weydiinaya marka way iska fiican tahay inaad si ogaato bal su'aalaha la isweydiiyo ee ku badan qaariyagu waa tabcan waa shaqadaadii waa la weydiinaya shaqadan soo qoratay iyo sida arrinta ku qusaysay arrimaha laakiin su'aalahan kale guud afar baa jira afartaasan jecel maanta inaan bal hadda yara taataabano su'aasha koowaad ee inta badan la isweydiiyo marka sidaaba interviewgu u bilaabmo ama waraysigu u bilaabmo waxa weeye su'aasha ah bal hadda iskaga kaaya waran in yar taariikhdaada nooga waran waa su'aal loogu talagalay in adiguna aad ku furfuranto dadka ku dhageysanayaan aad ku furfurmaan aad hadalkiina isku yaro dubadhaco codku ku yaro furmo waxna laga ogaado bal hadda sidaad u hadlaysa iyo sida kale iyo waxoogaa maarta waa la isku furfuraa marka lagu yiraahdo hadaba naftaada ka waran macnaheedu maaha inaad ka soo bilowdo halkaad ku dhalatay iyo magacaaga oo aad ka bilowdo aniga magacayga waa maxamed cali bile waa sidaa iyo sida waa lagu garanayaa inaad maxamed cali bile tahay warqaday ku qoran tahay dalabkaaga ku qoran tahay magacaaga waa la hayaa halkaad ku dhalatay iyo magaaladaad ka timid haddaad soo bilowdo waqti badan baa kaa lumaya oo macno leh waqtigaad haysataa wuxuu u badan yahay ama waa 1 daqiiqo ama waa 2 ama waa 3 dad qaar ilaa 4 geeya way jiraan laakiin inta badan waa 2 daqiiqo 3 daqiiqo 4 daqiiqo dadka qaarkood 1 daqiiqo intaas la doonaya inaad noloshaada ku soo koobto haddaba macnuhu maaha dadka noloshaada ma rabaan anu tuulo heblaayaan ku dhashay dugsiga hoose dhexe waxaan ka galay meel heblaayo dugsiga sarena waxaan ka galay meel heblaayo kale markii dambena jaamacad heblaayaan galay markaan jaamacadda ka soo baxay sanad baan halka ka soo shaqeeyay markii dambe halka ka tagay adoon meelba soo gaarina weli waxbaan ka baxayo waxbaan galay lahaya ay horta saddexdii marir ka dhacayaan hadda halka ka soo bilowdo waxaad saddexdaada marir ama labadaada daqiiqo ama saddexdaada yani kolba inta doontaan noqotee waxaad u isticmaashaa wax shaqadan aad qoratay ka caawin kara oo macno leh oo iyaguna wuxuu noqon kara oo aad maaragtay tusi karto dabcan waxyaalo badan waad ka hadlaysaa laakiinse haddaad ka sheekayso tuuladaad ku dhalatay iyo halkaad ka timid iyo dugsigii sare iyo macallinkii wax kuu dhigi jiray halka goor la daalay baadoo macnihiiba gaadhi bay koran okay bal halkaa inoogu joojiyo su-aashii labaad baa lagu weydiinayaa adna waqtigaas uu kaa khasaaray 3 daqiiqo ka faa'iidayso waxaad dhaqso uga fakirtaa meel iska soo galaan shaqadan iyo taariikhdaada de marka baa ku bilaabin oo de koox ka soo salaagsan ku soo bilow waxaad oran kartaa anigu waxaan leeyahay waay aragnimo 5 sanadooda oo arrinta ku saabsan arrintii de marka laga hadlayo suuq geynta alaabada ama suuq geynta ama wacyigelinta dadka 5 sanadooda khibrad aan leeyahay saddex kamidi waxaaba ku saab aad ugu dhawaayeen barnaamijkan imkaan halkan ku wadnaa markaas halka ka galo marka waxa tirada saddexdaas sanadood waxaan soo joogay magaalada Hiblaayo shirkad saasan soo shaqeynayay ama wasaaradda Hiblaayo aan shaqeynayay ama hay'ad Hiblaayo ama de shirkadana anagu leenahay waa bahala habaad u shaqeynaysay shaqooyinka qaban jirayna waxa kamid ah sida iyo sida waxa doonaysaa meel iskaga meheriso way aragnimadaadi iyo waxaan ay iyagu rabaan aad iskaga soo dhaweyso طبعا marka dambe wad yara galisaayo marka xoogaa halka taataabataa waxaad leedahay 2 sanadood kale waxaan ka soo shaqeynay inkastoo aan toos u la xiriirin shaqada noocan oo kale ah haddana shaqo kale sidaas oo way aragnimo aan indhaha ku furtay oo sidaa iyo sidaas ka bacdi ma marka waxbarashada galisaayo waxbarashada waxaad ka soo qaataan intan dambe macnaha sameynaysa oo de dugsiga sare kole de takhasus badan ma jiro laakiin jaamacadii umaad ka soo qaadaysaa jaamacadii digriigii koowaad saas oo ama shahaadadeedii koowaad shahaadadeedii labaadna sidaa iyo saas ay ahayd meel iska soo yaro gelisaba marka mesela haddii shahaadadaadu ay ahayd maamul ama waxa loo yaqaano management waxaad oranaysaa de maaragtay anigu waxaan kusoo takhasusoo shahaadadeydii labaad kusoo qaatay jaamacad Hiblaayo maamulka laakiinse waxaa ku jiray duruus badan oo ku saabsan xagga suuq geynta iyo maaragtay de marketingka
ku jiray oo caynkaas ahaa markaa waxna waan ka qoray waxaad la doonayaa bal waxaan aad adigu ahaan jirtay iyo inaad isu soo dhaweyso waxaana iyagu rabaan inay maqlaan marka ha ka soo bilaabin ilaa halkii u dambeysay meel yarood iskaga xidhantaan raadi marka su-aashaa la weydiiyo oo ah dhowrka sannadood aad soo shaqaynaysa sanadihii ugu dhadhowaa shaqadan la rabo eed waayo aragnimadeeda ku faani karto taasi horta iyadu waa mid su-aal labaadna inta badan iyadana dadka la weydiiyaa oo marka meel de ama qacda hore la weydiiyaa marka bilowga ama meel dhexe lagaa weydiinaya oo ah maxaad shaqadan usoo qorata su-aal adag haddaan sidiya maxaad shaqadan usoo de shaqadoon baan aha baad odhanaysaa marka dee daacado hadlayso waxaad odhanaysaa maxaad shaqadan de shaqadoon baan aha mushaar baan doonayo dee maaragtay inaan shaqeeyana waan doonayo hadda waa su-aasha waa jawaabta daacadda de qof kasta waa shaqadoon haddaad bilaa shaqa tahood shaqo qoratay dee shaqaan doonaya oo mushaar inaan qaato maaragtay noolaado nolol wanaagsan oo mustaqbalo dee ayahay laakiinse haddana in yaroo xariifnimaa lagu daraa oo taa ka yaro duwan oo dee shaqada markii lasoo xayeysiiyey waxaan eegay maaragtay shuruudihii layska rabay marka shuruudihii layska rabay eegay waxa si fiican igu soo baxday inay shaqadan ahay shaqa aan ku habboonay anigu oo marka shuruudihii eegay caynkan eegay sanadaha waayo aragnimada la rabo shahaadada la rabo ee maaragtay tacliinta la rabo iyo aragtidayda kale iyo dhulka laga shaqaynayo iyo sida uu yahay iyo ama shaqada la qabanayo noocay tahay iyo waxaa markaan eegay waxaan markiiba isku qanciyey inay shaqadani tahay shaqo ama aan kasoo bixi karo ama nooca shaqada aan xiisaha u hayo ee markaa ana aan nafteedana faa'iido ka heli karo dee dadkan u shaqeeyana aan faa'iido ka heli karo horta dee meel saasa waxoogaa kasoo yaro tuur marka dambe haddana dee dhaqaaqso waxaad leedahay wasaaraddiinan ama shirkadiinan ama hay-addiinan ma garanaysaa dee in badan baan maqlay oo maaragtay inaad tihiin dadka mashaariicda noocaasa wada ee halkaas haddii goorna waa shaqooyinkan anigu xiisaa u hayo howlaha aada wadaan waxaa maqlay inaad beeraha maaragtay aad qotaan oo aad ceelasha dadka reermiga u qotaan oo aad meel kalena sidaa tirahdaan aniguna takhasuskayga waxa weeye waraabinta beeraha iyo sidaa marka waxa aada iyo aada iskugu soo dhow shaqadan aad maaragtay la xayeysiiyey iyo shuruudaha laga rabo iyo waxaan anigu xiisaha u hayo shaqadayduna tahay waayo aragnimaduna tahay saas ayaan anigu runtii aada u xiiseynay inaan shaqadan aan soo qortay adigoo dee markaa maaragtay aan ka dhigayno dee nin baahanuna wallahi dee waan soo shaqeyn ma garanaysaa muddona maan shaqayn waan soo qortay aan odhanay laakiinse de ka dhigaya inaad xiisa ku hayo dabcan marka dambena waxaad odhanaysaa de dabcan maaragtay shaqadiinu soo jiidashay leedaho maaragtay markaan eegay meelaha laga shaqaynayo dadka lala shaqaynayo hay-addiinu sida shaqaalaha maaragtay dee haddaad qof saaxiibo ku leedahay dadan ka aqaano marlida la shaqeeya ay sheegay inay tahay hay-ad shaqaalaheeda maaragtay si fiican u gasho caynkan dabcanna dee baryahan shaqo maan hayn marka shaqadii horena dhowaan baan ka tegay marka dee inaan shaqo galaano waa halkeeda marka ha ku bilaabay marka horeba halkan baahida waxaad ku bilowdaa meeshan yaree dhexe maaragtay aad dee in waayo aragnimadaada iyo xiisahaaga iyo maaragtay sida ay waxyihiin iyo shaqadan lasoo xayeysiiya ay isku habboon yihiin taasina waa muhiim inaad sidaa tiraahdo waxa weeye mar kasta inaanad isdaciifin ead iska dhigto qof adag hadiyo goor su-aal kale marka dambe la isweydiiyo la ydhahdaa oo su-aasha saddexaada haddii shaqadan aada hesho maxaad kusoo kordhinaysaa maaragtay dee xafiiskan ama shirkadan ama wasaaraddan ama hay-addan ama kambanigan waxaa doonto ku sheego meeshaan shaqada usoo qorto maxaad isleedi waad kusoo kordhin kartaa egata waxaa laga yaabaa dadkiiyo isku wada mida ayuu mid jawaabta si yaroo wanaagsan uga yaray jawaabaya waafiya midna si yaroo khafiifa macnahan oo dhami ma aha waxaad taqaana iyo waxaad ahaan jirtay waxa weeye sida waafigeed wax uga jawaabto ayay ku xidhan tahay kolba sida lagu arkaa inaad tahay qof waafiyo soo jeeda oo dhiiran oo kalsooni ku jirto iyo inaad tahay qof baahan oo meeshan usoo doontay un inay waxa lagu yihi maxaad kusoo kordhin karta runtii anigu wax badan baan kusoo kordhin karaa shaqadan wax badanna runtii daana waan ka faa'iidi karaa waayo aragnima iga kordhi karto dee khibrad waa maaragtay shirkad waayo aragnimo badan aan ka korarsanayo laakiin wax badan waxa weeye markaasaad meel baad iskaga dabaqaysaa masalan haddii laga soo shaqaynayo sidii aan beerahaba sheegnay ama laga soo shaqaynayaba caafimaadka oo aad tidhaahdo halkaa iyo halkaa iyo halkaa ayaad odhan kartaa anigoo caafimaad baan kasoo shaqaynayay gobolka sool intaa iyo intaasaan kasoo shaqaynayay waxa aan malaariyada waxaan ku jiray kooxdii maaragtay daweynaysa dadka malaariyada caynkan iyo caynkan waayo aragnimo badan baan kasoo faa'iiday tuulooyin badan baan kasoo shaqeeyey magaalooyin badan baan kasoo shaqeeyey reermiyi badan baan wax la soo qabtay caynkan iyo caynkan marka maadaama mashruuciina ninkaa ku dhoweyay ana waxaan qabaa khibraddii aan 3 sannadood gobolkaa sool kala imid
waayo aragnimada kala yimid haddii inaan halkan da wax badan ku dabaqayo dabcan halkan lafteeda idinka shirkadda lafteeda ama hay-addan lafteedu waayo aragnimo badan bay leedahay aniga lafteedu waan ka faa'iidaya kolley waayo aragnimo ka kortay laakiinse 3 sanadood waayo aragnimada fiican oo lahaa waan reer miyiga iyo xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga la shaqeeyay waxaan u maleynayaa waayo aragnimadii aan kasoo kororsaday inaan halkan ku dabaqi karo intaydan u hanaqlanin intaydan intaad qorato intaydaa ku wada jawaabina ilaa haddii kale 10 bayd isku raaciyo intaydan ku jawaabi intaa ma aha waxa weeye wax kaloo adigu waxa uu eegadna la kaalay marka dambe oo dee runna oo shaqadaadii su-aal kala imanayso ah oo laga yaabo inay timaado oo ah bal ciladahaaga wax nooga sheeg meelahaad ku liidato wax nooga sheeg dadka qaar baa guulwadaya marka su-aasha la weydiiyo cilada meliyo waxaan ahay qof is haysta oo cirka iyo dhulka kala hayo oo ma garanaysaabo waxaan ahay nin dadka la shaqeeyo dhiiro ma garanaysaa aan shaqadiisa ka habsaaminoo waxaan ahay qof maaragtay daacadahoo halka war qof caadi ah tahay waxba marka turrugta gasho waa lagu garanaya inaad wax iska kabayso halkaa ha gelin dadku waa wada daacad waa adoo kale daacad baan hayo dad la shaqaynteedu way fiican tahay qof dabeecad fiican baan hayo halka ha gelin oo dee ha tafiri qof kasta inuu cillad leeyahay oo meel daciif leeyahay waa loogi marka waxa lagu yiri bal daciifkaaga wax nooga sheeg mid iyo labaad sheegi kartaa laakiinse waxaad u sheegi kartaa qaabaan adiga hab aan adiga qaan kugu soo noqon dib kugu soo noqon daciifnimo kugu noqonay laakiinse kuu noqdo haddana faa'iido ama waxa credit-ka leeyahay kuu noqda oo faa'iido kuu noqda laakiin aan kugu noqon de yani adiga hays tabcaynin oo adiga jalaafa haysu dhigin oo dhibaato hays gelin laakiin waxa geeyay mesela waxa la kartaa eegata si kayro qurux badan oo kale oo faana ku jira baad yara dhigi kartaa waxa la kartaa anigu imika waxaan ku hadlaa luqadda Soomaaliga luqadda Sawaaxiliga luqadda Ingiriisiga iyo luqadda Carabiga laakiin in muddo waxaan isku dayay in luqadda Faransiiska barto laakiin sibaan luqadii isku karla dhinac waad ka yara faanto inaad 4 luqadood ku yara hadasho waad sheegtay Soomaali iyo Carabi iyo Ingiriisi iyo ma garanaysa hadda doonto Sawaaxili baa ku sii darno waa yara buunbuuna Soomaali iyo Carabi iyo Ingiriisi oo dad badan yaqaana Faransiiskaas laha baro laakiin Faransiiskaas waxoogaa dhowr gooron kale ayaa sibay wax iga noqdeen waan ka booday laakiin imkaan damacsanay inaan halkaas ku tago marka waxaad sheegtay wax ka dhiman laakiin haddana waxaad sheegtay dhinacna waa adigan ka faano qof 3 luqadood yaqaan baatay marka halka waxoogaa yar bad ka soo gelisayo nuqsaan badan kuma gelin daciifnimo badan ismaad gelin fikir kalaad keeni kartaayo مثلا waxa oran kartaa runtii anigu markan computerka la garaacayo waxaan jeclaa in badan ba inaan maaragtay aanoon eegayn badhamadan sida u garaaco si aan faas u garaaco sida faas u leeyahay bariyaha soo maaragtay laba farood baan ku garaacay wali dawaan gargaraacay laakiin waa sida qaar kale aad iska sheegan kartaayo de toosood oran kartaa inkastoo qof reer magaalo ahayo de gabadh reer magaalo ahay haddana baabuurka ma wada aqaan ayaa de oran kartaa oo de maaragtay wax yar laakiin wax shaqada ku saabsan oo daciifnimo ah de ha sheegin oo de ha oranin anigu samir malihiyo marka qof wax hadal badan oo aan wuxuu sheego maqli waayo waan ku diiqadoodaay ana dhaqaaqo shaqadii qabta yaga dad wax isleeyahay wax wanaagsan baad sheegtay waxaad ku leedahay qofkii aan xukumayay ayaa marka shaqada u diro aan waayo ma garanaysa uma dul qaato habsaanka iyo waxaan ahay waan riixaayo aniga ku dhaqaaqo maamulo wanaagsan ma tiid marka waxa qof bilaa dulqaada oo dabeecadu ka xuntay waxay istabcayna marka adigu wax isleeyahay faan ka dhigan laakiin faan kuma noqonayso wax yaro kaana dhiman laakiin haddana ama aad ku tala jirtay inaad qabato ama dhinaca kale ka tusayso inaad haysato wax kale oo aad ku kabto waxa ayaad horta sheegaysaa afarta su'aalood ayaa had iyo goor u badan su'aalaha la isweydiiyo ku jira uma badnayo had iyo goor ama mid ama laba ama saddex ama afar ba ku jira bal isku day anigu deemka tusaalooyin yar yar oo kooban baan soo qaaday bal isku day inaad tusaalooyin kala soo qaado tusaale kastood soo qaadaa yuu noqon tusaale adiga ku tabceeya tusaale adiga dhinac wax kaaga tara wada marka lagu dhamaa maxaad shaqadan soo qortay wallahi muddo mushahar ma qaadan mushahar baan doonayay daa horan hadda waana dhab wadadku mushahar buu wada doonayay laakiin ha soo qadimin si yaro kala u dhig wuxuu dhanna waxay ku xidhantay kalsoonida
haddii kalsooni kugu jirto oo si kalsooni leh u hadasho oo si kalsooni leh hadalka u gudbiso oo si kalsooni leh u fadhiisato oo si kalsooni leh dadka u eegto adigoo garbahaagu fidsan yihiin wejigaagu sidaa u eegyahay aad qofka indhihiisa eegto ka kala eegto ee marka qofka kala hadlayaad intaad eegto aad sidaa dee hawada qoslina laakiinse aad si maaragtay inaad hadalkiisa ama la dhacday ama aad dhegeysanaysa lagu fahmo ayaa waxaasoo dhan lagaaga baahan yahay waxaan rajaynayaa inuu casharkaasi ku anfacay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu